haraadiga gaadiidka badda oo qadiimi ah ayaa laga soo saarayaa biyaha hoostooda. khuburo ayaa ku dadaalaya in mar kale la ballaariyo xaddiga dekedda Muqdisho oo aanan dayactir buuxa helin muddo ka badan 20 sano oo dalka ayaan ka jirin nidaam dawladnimo. dhowr sano oo maamulka dekedda ay hayeen hay'ado caalami ah waa markii ugu horeysay ee laga soo saaro haraadiga birooyin waaweyn kuwa oo suuragal ka dhigi waayay in maraakiibta waaweyn ay ku soo xirtaan dekedda. madaxda shirkadda gacanta ku haysa dekedda Muqdisho ayaa sheegaya in biyaha hoostooda ay ku jiraan qalfoofta gaadiidka badda muddo bil ahna ay ku weyneen doonaan ballaca ay lahayd dekedda Muqdisho. Albayrak firması olarak 3 seneden beri Mogadishu limanını işletmekteyiz. 3 sano ayaan maamulaynaa dekedda Muqdisho. Haddaanu nahay Albayk waxaan sare u qaadaynaa shaqada dekedda. Artan yük kapasitesine paralel olarak muddo hadda laga joogo isbuuc ayaan bilownay qodidda badda waan gaari doonaa xilli ay ku soo xirtaan maraakiib waaweyn annaga oo heshiis la galnay shirkado waaweyn oo ku hormaray hagaajinta dekedda. yükseltilmesi için uzman bir firma ile anlaşmıştır. dekedda Muqdisho waxaa aslahaan la sameeyay waqti aad u horeeya taas oo taariikhahanadu ay ku sheegeen in dekeddan ay jirtay waqtigii boqortooyada Roomaanka waxaana hadda aad ugu faa'iideysta ganacsada Soomaaliyeed oo suuqyada dunida ka keena shixnado kala duwan kuwaas oo hadda lagu baayaco suuqyada dalka. Ibraahim Xaaji Yuusuf, RTN TV, Muqdisho.